ودقيسو وحي فائدة أهنا كربح نفتاذنا أقويا خيرك نبي صلى الله عليه وسلم أيا وحو بوغذنين أصحاب تكمدها أو آدو حنون سنيي waxa uu weydiiyay ilaahay wax ma weydiisan jirtay wiilkii ayaa waxa uu ku jawaabay waxaan odhan jiray ilaahayow dambiyada aan galay ciqaabteeda maalintii yawmal qiyaama la iga jari lahaa hadda ii soo dedejiyo adduunyada igaga jar wuxuu yidhi subxaanallah ma tidhi ilaahayow adduunyada wax wanaagsan inagu sii aakhirana wax wanaagsan inagana badbaadi cadaabtaada nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam markii uu jeelka wakhti badan ku dhex qaatay uu ku raagay waxa uu yidhi ilaahayow jeelka aadayadiigu dhex raajisay ilaahay ayaa u jawaabay oo yidhi adiga ayaa dalbaday jeel waanana ku siinay haddii aad dalban lahayd dembi dhaaf waana kuu dembi dhaafi lahayn qur-aanka ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku xusay hadal uu nebi yuusuf yidhi qaala rabbi sijnu axabu ilaya mima yadcuunanii ilayh ilaahayow jeelka ayaa iiga roon waxan ay iigu yeedhayaan ilaahayna dalabkiisii ayuu u oofiyey maadaamuu ka dalbaday jeel dib u xasuusan noloshaada inta jeerad ku dhawaaqday weedha u eeg hadalladaas imaam alwardi ayaa waxa uu yidhi alqadaru muwakilun bilmantiq waxa aad ku hadlaysaan ka warhaya carabkiinana ka ilaaliya hadalla noocaasi ah oo habarina waxa aad ku hadlaysaan naftiinna ayay hadhow dhib u keeni kartaa waxa aad ku hadlaysaan amba aad ilaahay ka dalbanaysaan ha noqdo waxa ugu wanaagsan ee aakhiriya adduunba ku anfacaya sheeko uu warinayo sheekh lagu magacaabo cali dandaawi ayaa waxa uu leeyahay sheekhu shaam ayaa waxaan ka ahaa qaadi amba garsoore maalin maalmaha ka mid ah ay ahayd wakhti ay cadceeddu sii dhacday ayaa waxa aan wada soconnay niman saaxiibaday ah annaga oo dariiqa soconna ayaa waxa aan dareemay daal iyo culays saa'id ah waxa aan damcay inaan adkaysto oon la sii socdo saaxiibaday balse waan awoodi waayey kadib ayaa waxaan ku yidhi iska sii socda anigu meeshan ayaan ku yaro leexanaya oo hawada ayaan qaadanayaa markii aan ka leexday ayaa waxa aan maqlay gurxan iyo ooyin dhagahayga ku soo dhacaysa markii aan u sii dhowaaday ayaa waxaan arkay gabadh foorarta oo oohinaysa isla markaana ilaahay baryaysa waan ku dhowaaday oo waxaan idhi walaalay maxaa kugu dhacay oo sidan kaaga oohinaya waxa ay tidhi saygaygu amba ninkaygu waa nin xun oo daalim ah gurigii ayuu iga soo eriyey carruurtiina wuu iga reebtay xataa iima oggola inaan soo eego aniguna ma haysto hoy iyo cid aan u tago qaadigii ayaa waxa uu ku yidhi oo dacwadaada maxaad ugu gudbin weyday qaadiga magaalada aad ayay u oyday kadib waxa ay ku tirsiday gabadh anigoo kala qaadiga ugu tegi kartaa sheekha oo oohinaya ayaa dhammaystiray oo yidhi gabadhu ma ogaa inuu ilaahay qaadiga lugihiisa ugu keenay isaga oo ka hadlaya naftiisa ilaan waa qaadigii magaaladee ilaaha ayaa wakhtigaa madow ee habeennimada ah qaadiga lugihiisa ku horgeeyay gabadhaas isla markaana uu isaga laftiisu weydiinayo gabadha waxa ay u baahan tahay gabadhaasi sidaas u dhibaataysnayd ducadii ilaahay weydiisatay ilaahay wuu aqbalay qof walba oo dhibaato dareemaya oo u malaynaya inay adduunyada ka xidhantay gacanta kor u taago ilaahay weydiiso wax aad u baahan tahay oo hays odhan sidee xal loo gaadhi karaa oo kuwan umuurihii isku qasmay ka farxi qalbigaaga ogow markaad dhibaato u samirto kadib in uu jiro shay ku ilowsiin doono dhibaatada aad soo martay ilaahayow qof walba oo fariintaydaasi furay ee maqlay ilaahow barakee oo cirka iyo dhulka oga fur arsaaq uu ku farxo qof walba oo sii sheergareeya oo sii faafiyana ilaahow jannadaada xisaab la'aan ugu nimcee ilaahayow waxa uu haminayana u fududee isaga iyo dhammaan muslimiinta dunida ku dhibaataysan oo lagu soo biir waxay inoo tahay